halkan waa xirada barakacyaasha Waaqle oo ku taala waaxda koobaad ee degmada Kaxda ee magaalada Muqdisho. Xiradan waxaa ku nool tira ahaan dad gaaraya 804 qoys oo ka soo barakacay deegaano hoos yimaada gobolada Bay, Bakool iyo Shabeellada Hoose. Abaaro aad u daran iyo colaado ka jira halkii ay ku noolaayeen ayaana sabab u noqday qoysaskan in ay ka soo barakacaan deegaanadoodii. 3 qaybood 2 qayb oo kamid ah dadka halkan ku nool waa dumar iyo caruur. duruufaha adag ee ka jira xiradan ka sokow dumarka halkan ku nool waxa ay khatar ugu jiraan dhimasho xilliga umusha waayo xiradan ma laha wax isbitaal ah ama goob laga heli karo adeeg caafimaad ee ay u baahan yihiin xilligaas. Fayla Baakay waa 24 jir haysata 2 caruur ah. 3 toddobaad ka hor ayaanay gudaha xiradan ku umushay gabadhan yar. Xanuunka foosh oo waqti dheer hayay, daryeelkii ay u baahnayd oo aysan helin iyo qof aqoon u leh hawshan oo aan laga heli karin aagan ayaa sabab u noqday in ay qarka u fuusho geeri maadaama ay la kulantay dhiigbax ku yimid. Aamina Aadan Cusmaan muddo ku dhow 1 sano ayay halkan ku nooshahay iyada iyo gabar yar oo ay ayeeyo u tahay. Muddadii ay halkan ku nooleed waxa ay caawisay dumar badan oo halkan ku umulay. Misalaha aqoon buuxda oo ay hawshan faraha kula gasho, goobtii ay ku qaban lahayd iyo xataa agabkii laga maarmaanka u ahaa. waxay se adeegsataa sakiin iyo waxyaabo kale oo halis ku ah nolosha hooyada iyo ilmaha yar. Mararka qaarna geeri ayaaba timaada. sakiin qaade dunga qaade ma qaduntan geere adunta meel garta aga ka gooye kasto gedgediye waana sariita sanka gemi baatishe saare. Shukri Cabdiwahaab waa hooyo kaamkan ku haysata 6 caruur ah. waxa ay rajeynaysaa in mar dhow uu reerkooda ku soo biiro ilmahoodii 7. walwal xoogan ayaase dhinaca kale ka haysta waayo waxay goobjoog u ahayd dhammaan qatraha halkan sida maalinlaha ah uga dhaca. Baatada ay la kulmaan dhiig la'aan, daryeel la'aan, waxa faleebo ma haystaan, umulso oo waxa maysan umulso xaafadeed leeyahay intaas ay dhibaato u qabaan. Qatarta ay dumarkan la kulmaan xilliga ay umulayaan kaliya kuma koobna inta ay xaaladaas ku jiraan. hase yeeshee saameyn fog ayay arrintani reebtaa sida ay rumaysan tahay Dr. Sahra Cawad Warsame oo aqoon u leh daryeelka hooyada uurka leh. qofka oo waqtigan aynu joogno raba inuu guri ku umulo waxa weeye waa qof ugu talagalay inuu wixii ka imaada oo mas'uuliyaddeeda qaado sababtoo ah qofka kan 9 bilood ilmo soo siday ilmaha caafimaadkiisa lama oga dhibaatadu adigu ku keensan karo uurkani ma ogid dhiig karaa kugu kici kara eklamshiyad gali kartaa sonkor baad qabi kartaa aadan ogeyn waxa laga yaabaa sonkortii ama dhiig karkii aad markaas qabtay in ay kaliyaha ku dhuftaan kadibna ay kaliya shaqada gabaan waanu aragnay. qiyaas ahaan 10 kamid dumarka halkan ku nool ayaa ku jira toddobaadkii ugu dambeeyay ee sidka ilmahooda waxaana ay ka walaacsan yihiin daryeelkii iyo gurmadka caafimaad ee u baahnaayeen markay umuli lahaayeen maadaama halkan aysan lahayn wax isbitaal ah iyo sidoo kale gargaar caafimaad goob ay ka helaan. Fatxi Maxamed Axmed warbaahinta Bilan magaalada Muqdisho.